السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقيبتي سدحات برنامج تحناء وأنا وهاللي قيمين عن قصة مين أيو دعدوينك أما مصائبته إن هاي ستة دل يدبد به. إن قيبتنا سدحات وحان وهاللي أرين عن رنتي إسلاية هاي و good example. إن طلبات كان باوحاي سوامرتي maalmaha ka mid ah oo markii aan salaada subax dabadeed aan doonay inaan xoogaa yar aan saacad yara seexdo ayaa marba waxaan isiri bal Facebooka ama social media checkre which is Facebook. And by the time aan checkreyay waxa aan arkay akhbaar runtii iga naxisay oo aan ka naxay dabadeedna barnaamijkii aan lahaa ee ahaa inaan yara seexdo waa hurdada si kastoon isugu day waa iga soo dhic weyday waxyaalo badan oo calaamaad ah oo jirkayga uu ila wadaagay oo qof kasta binaadanna uu marayo ayaan rabaa inaan tusaale u soo qaato markii aan akhriyey warbixintii meesha ku qornayd oo qarax ka dhacay Kismaayo iyo raadkii uu ku reebay taasoo anigoo ka fog malaayiin ama kumaan kun oo mayl dhacday inuu saameyn ugu yeesho oo qof dadaan aad u jeclahay ay ku dhinteen taa muhiimadeedu ma ahan dadkaasi ee waxaan ka hadlayaa in generally maalin kasta ayay dhacdaa in dad aynu jecelnahay haddii ayagoo caadi u dhinta oo tii Allah subxaanahu wa tacaala u timaado oo natural death ay dhintaan iyo haddiiba mawtul fajr ku yimaado iyo haddii qarax uu ku dhaco iyo haddii si kasta uu u dhintaba qofka adiga ku dhow sidii aan tusaalihii hore aan ku soo bilaabay oo sheekadeeda markasta aan rabo inaan referral ama reference aan u sameeyo ee ahayd nabigeena cunugiisa Ibraahim markuu dhimanaya ay ilantu ka soo daadatay waxa ku dhacay oo qofka bini'aadamka ku dhacaya waxay tahay waxyaalo badan oo emotional affect psychological impact then physical appearance waxyaabo badan oo bini'aadamka isla markiiba qafashkii aanu sheegnay maskaxda ahayd ee qofka Allah subxaanahu wa tacaala uu siiyey wax ku dhacaya jira oo keenaya inuu wadnaha ku boodboodo in aad dhidid iyo ay ka soo daataan maxaan ku amahannaqdo halka ha dhidido ama maxaan ku raada jirka kale ha dhidido waxyaabo badan oo loo yaqaan psychologically marka laga hadlayo fear in qofku uu ka baqdo oo uu dagaalamo oo reaction uu ka sameeyo arintii ama inuu meeshaba isaga cararo oo naftu uu la baxsado marka arintaasi oo joogto ah oo haday dhacdo iyo waxa iraadku ku yeelanaysa ayaan rabaa inaan bal arinta kugula wadaago markay dhacdo qofka bini'aadamka ay ku dhacdo oo waalid ama walaal ama carruur uu dhalay ama qof saaxiiba uu jeclaa oo isla soo qariibeen oo uu garanayo oo maxaan ku raad taariikh badan isla soo mareen si kastoo isu mooganeydeen muddo laakiin marka ay ku dhacdo iyo qof kastoo muslim ah qof aydan xitaa is arag laakiin dusha aad ka taqaanid maxaa yeelay Soomaalidu waxay tiraahdaa geeridu waxay ku fiican tahay ama ha ku dhacdo geel jiray iyo qof aadan aqoon laakiin marka ay taabato qof adigu aad taqaanid walow xitaa aadan cilaaqo soka aadan lahayn sida sheekha weyn ee Sheekh Cabdinaasir oo kale markii ku dhacday runtii waa ku taabanaysaa markay ku taabato isla markiiba jirkaaga uu dangeegaxanayaa waa waxyaalaha badan baa hormones oo ay maskaxdu mas'uul ka tahay baa kugu soo fatahaya marka arinta noocaas oo kale marka ay dhacdo oo caadi oo maxaan ku radaa qofka inuu baroortiiq maro oo qofka murugadii maro oo aan luqadda Soomaaliga u naqaano marka cilmigana kala iyana qayb meel bay kala yihiin inaga waxyaalaha aynu naqaano ee tacsida ah ee murugada ah iyo baroortiiqda ah ee aynu marno ee dhaqan kastana uu maro cilmiga sayniskuna meel buu kaga jiraayo runtii waxay noqonaysaa qofka bini'aadamka markay musiibada asiibto musiibadaasoo maxaan ku radaa mid keliya ah tusaalahaan hadda qof aad jeceshahay oo dhintay ama dhaawac uu soo gaaray qof aad jeceshahay qof sokeeye qofka daadan aqoon hadamaba taqaanidba qofka adiga markaas kuugu dhow dadka marka aniga kan igu dhow adigana waxaa dhici karaysa inaan ku dhaweyn qof kale ku dhow oo qof waliba marka qaraxa ka dhacay Kismaayo midkii Hargeysa ka dhacay mid istaaqfurla Hargeysana dhigane waxaan ka wadaa midka ka dhacay Beledweyne midka ka dhacay maxaan ku radaa Boosaaso midka ka dhacay Muqdisho
adigu qarax meel kasta uu ka dhacaba muhiimaddu waxay tahay oon hadda aan hargeysan ugu dareeno qarax uusan ka dhicin laakiin ujeedadu waxay tahay qarax waa qarax meel kasta uu ka dhaco qof buu saameynaya annaga qofkaa dhimanaya dhibka soo gaaray dhaawaca imaanaya ayaa dani inoogu jirta oo aan ka hadlaya toobigeyguna waa kaa mar hadday taa tahay markaa khayr allaha ku siiye ee waxaa imaanaya raad uu ku reebiyo qofka bini'aadamka taasoo emotional leh oo psychological leh physical leh dhibkiisii wata hal mar markuu qofka uu ku dhaco oo hal mar ay tahay naturally qofka uu qofkaa dhinto ama hal qof maxaan ku qallibmo oo bas ama uu la rogmado ama maxaan ku gaari uu la qallibmo nolosha bini'aadamka ka mid tahay oo maxaan ku qofkaasi waa laga gudbayaa oo maxaan ku rahdaa noloshu way soconaysaa waa marka ay tahay once a while taasoo aan nolosha qof baa dhimanaya qof baa dhalanaya qof baa farxaya qof baa guursanaya markaan ka hadlayno oo Allah subxaanahu wa ta'ala aayaddii uu suura tabaarig uu noogu sheegay nolosha maxaan ku rahdaa mawdka iyo waxa loo sameeyay geeriduba in maxaan ku rahdaa waa tajruba waa faham soo maha mar hadday taa tahay marka arrintan u soo socdaa waxay tahay waxaasoo dhan waxaa loo yaqaanaa wax qofka bini'aadamka ah saameyn ku yeelanaya oo culays ah oo stress ah oo raad ku yeelaya maskaxdu markay raadka uu ku yeeshana dabadeedna qofka mar buu positive noqdaa wixii oo waxyaalaha qaarkood caqabaadka ah ee culayska jira ee qofku bini'aadamku u baahan yahay walow ay noqoto marka ugu horeyso qofku wax uu baranayo marka ugu horeyso oo maxaan ku radaa imtixaan uu gelayo waxyaabaha badan ee maxaan ku radaa positive-ka ee culeysyada jira ee nolosha u baahan tahay kuwaasi ka hadlimayo oo hadda kuwaasi maxaan ku radaa waa positive oo nolosha qayb ka mid ah oo waa tajruba joogto ah oo qofka bini'aadamku u baahan yahay laakiin arrinta runtii aan rabo inaan bal idinla darso ama isla fiirfiirano waxay tahay qofka bini'aadamka markii dhibaato oo negatively ah ay ku dhacdo negativekaasi runtii aafa ayuu qofka ku reebayaa jirkiisa mid labaad hadday ku dhacdana way laba laamaysaa mid saddex hadday ku dhacdana waa saddex laamaysaa mid afar hadday ku dhacdana waa afar laamaysaa masaa'ibtaa waxay u kala duwan yihiin midi waa geeri qof aad jeceshahay midi waa dhaawac adiga ku soo gaaray midi waa baktin adiga lagaa baktiye mid waa maxaan ku qof aad ehel tihiin ama adiga naftaadaba lagu xoogay ama wax dhibaato lagu geystay midi waa ku dar masaa'ibka noocaas oo kale qofka markay asiibaan oo ay noqdaan maxaan ku radaa kuwa stresskaasi uu noqdo mid joogto ah ee rigli ah ee raaga de waxa loo yaqaano waxay noqonaysaa waa masaa'ib joogto ah oo chronic stress weeyaan oo toxic ah oo sun ah maxaa yeelay qofka bini'aadamka mar hadduu dhibka soo gaaro jirkiisa wuxuu soo saarayaa hormoono u gargaara ee dhibka iyo maxaan ku rahdaa ka badbaadiyo oo qofka uu la baxso naftiisa tusaalaha weyn aanu isticmaalno waxaa ka mid ah tusaalahaan markaad soconaysa adoo soconaya lugta markaad saa u qaadaad lahayd steebkaad dhulka dhig oo aad aragtay meeshii oo mas maraya ama mas afka saa usoo kala haya maxaad samaynaysaa adaan ku weydiiye markaa lugta saa u dhigi lahayd oo aad aragtid meeshan cobra oo soo fiirinaya oo lugta haddaad dhigtidna laga yaabo inuu lugku goosto qofka bini'aadamka xaaladda noocaasoo danjarka marka uu la kulmo isla markii ama meeshuu dhagax ku noqdaa ama dabadeedna wuu la cararaa lugtiisii iyo naftiisu la baxsadaa dabadeedna within that secondkaas waxaa qofka ku soo duxaya hormoono maskaxda ka imaanaya ee maxaan ku radaa keliyuhu ay soo deenayaan waxa hormoono ah dheecaanadaasoo runtii qofka badbaadiya ee qofka la carara ama qofka meesha dhagax uga dhiga mararka ay sheekadu yar tahay oo wuxuu ay yihiin hal iyo labo qofka bini'aadamka waa sidaasi waa ka gudbayaa oo maxaa yeelay qofka wuxuu leeyahay awood uu ku kabsado oo uu kaga gudbo wixii laakiin wuxuu markay noqdaan waxaan dhammaanayn ee boqolaal umaan malaayiin soo taagan aysan ahayn maalin bil sanad 2 sano 5 sano 10 sano 30 sano 50 sano ee qofka uu marna maqlayo arkayo uu maxaan ku rahdaa isaga ay taabanayso anigoo ka soo fog haddii ay saamaysay cell phone iyo social media oo aan saa u fiiriyo wixii ku qornaa markaa akhriya haddii saameyn ay ugu yeelato
anoo kumaan kun malaayiin aan dhihi karo oo miles ka soo fog meeshaas wixii ka dhacay ka waran qofka maalin kasta agtiisu ay ka dhacayso ka waran qofka ay ku dhacayso isaga qofka ay mar kastaba ka hadlayaan regionkaasi waxa ka dhacay qofka mar kastaba marqaatigu ah ka waran waxa weeyaan dhibaatada ay ku yeelanayso aad bay u ballaarantay marka toxic stresskaasi ee joogtada ah qofka bini'aadamku wuu cunayaa qofka bini'aadamku wuu la harayaa qofka bini'aadamka noloshiisa dunidan waa ku maxaan ku khasaaraya waxay keenaysaa the quality of life-ka loo baahnaa qofka inuu noloshan yeesho aad bay hoos ugu dhacaysaa waana ta keenaysa marka in aan idin sheego intaan wax ka ogahay maxaa yeelay inagu kuma inaan talagelin inaan anna aad ilugoysa adna aan ku lugoy inagoo dhanna saa u dhannahay dad dhan saa u nahay oo malaayiin ah in aynu sidaa isku maxaan ku radaa dhibkaa isbadno kollay qofna kuma talagelaya laakiinse afcaasha dhacaysa shidooyinka dhacaya imtixaanada dhacaya lugooyada dhacaysa tacadiyada dhacaya ayaa waxay keenayaan in qofna aanu badbaadin oo dhammaantiyo aanu collectively gebi ahaan saan u dhannahay aanu stresskaasi isbadnay aanuna ku jirno loona baahan yahay in aynu aragno farta aynu ku fiiqno si taasi aynu noqoto xal markaynu aragno hadda yaa inagu talagala waxaan yaa inagu baday yaa ina baday qofka qaarkii waxaa dhici karaysa waxaa weeyaan tiih baa ina haysta oo 40 sano nahaynaya qaar dhahayaan waa maqo ilaah kama dhigo tiiha ina haysta haddii xitaa aad saa u miitaalka u soo qaadatid hadda inagu 40kiiba dhamaa ka soo qaad ama waxa weeyaan si kastoo taaba calaa kulli xaal in aynu qiimayno in aynu farta ku fiiqno meesha dhibku ka imaanayo in aynu xal u gaarno bini'aadam baynu nahay murugada tan joogtada ah qorordiiqdan joogtada ah tacaddigan joogtada ah ee ina haysta ee innaga aynu isku samaynayno in aynu xal u helno ayaa loo baahanayaa marka hadduu alla idmo toobakada dambe ee inoo soo socda waxaan uga hadli doonaa marka ay tusaale ahaan collectively baan hadda uga hadlaya oo ah collective punishment oo nafteenna aynu ku hayno annagoo iswada dulmayna taasaa waxay keenaysaa in aynu maxaan ku rahdaa ay nolosheennii iyo maxaan ku rahdaa faa'iidadii aynu nolosha ka lahayn haddaad xasuustid qaybtayda koowaad waxaan ku soo qaatay waana kuu xasuusanayaa alla subxaana watacaala wuxuu inoo ballan qaaday haddaynu nahay dad muslimiina rag iyo dumarba oo alla subxaana watacaala rumeeyey noloshan inaynu ugu noolaanayno falaa nuxiyannahu xayaatan tayiba anigu ma arka marka xayaata tayibadii ma hayo dunida kuma haysano xayaata tayibadii aynu rabnay inaynu dunidan ugu noolaano ma hayo haddii anigu aan murgayo adigu aad murgaysa dhammaantay aynu wada murgayno oo dhammaantayo aynu iscunayno oo jirkayagii welita waxaan ka hadlay waa waxa muuqan physical nooma muuqdaan qof waliba haddii iridaha uu xirtay oo meesha uu ku ooyiyo qof waliba uu maxaan ku radaa iskii uu ooyo maxaan ku dhibaato ayna wada haysto yar iyo yaraan ilmaheennii carruurtayadii mustaqbalkii waddanka ummadda dumarkayagii oo iyana haddii maanta toobigooda la galo aan la koobi karin malaayiinta issue ee haysta ee raggu ama collectively annagoo isu geysanayno ama raggii iyana saasoo kala iyo communitydii qabaa'iladii degmooyinkii rijinadii dowladdii war waxaad moodaa in aynu lugta iswada haysanno oo innagu aynu isku maqannahay waana tahayba marka calaa kulli xaal arrintaasaan doonaya sida raadka ay ku yeelanayso in aynu innagu nolosha tan adduunka aynu ugu noolaano nolol maciisha oo farxad ah nolosha aan ka hadlaya alla subxana watacaala inoo ballan qaaday ee ahayd tayiba nolol hagaagsan ee aanu noolaanayno taasoo ah in deegaankayga uu nabad inoo yahay wax aan culo aan heli karo meel aan ka shaqaysto nolol aan ku noolaado caafimaad wanaagsan maxaan kula beerahayga aan qoto nabad iyo maxaan ku caafimaad iyo barwaaqo xaq baynu u leenahay inaynu ku noolaano taasaynu ummadaha caalamka aynu kula xisaabtami karnaa deriskayaga aynu kula xisaabtami karnaa waxaynu kula xisaabtamaynaa inteebaa ilmahaagu ay ku umulbaxeen inteebaa hooyo umul maxaan ku dhimatay iyadoo dhalaysa inteebaa maxaan ku inta issue health issueska
intaynan ba gaarinba waxaynu ka hadlaynaa hadda qafaska yarka ah ee inta inoogu xaran aan la arkaynba inta dhib gaartay ee aniga haysta adiga ku haysta inaa wada haysta iyo sida aynu uga bixi lahayn ismana arkayno ismana sheegayno ummadiina waa ka wada maxaan ku radaa wada xanuunsan ee dhibkan aan ka baxayn marka insha Allah arintii dhacday weegan waxay keentay shakhsiyan anigu ugu keentay stressful event bay ahayd xaalad runtii taasoo keenaysa emotional maxaan ku radaa in ay crisis oo kala maskaxda ka qabsadaan taasoo keenaysa in qofka bereavement waxa loo yaqaano uu galo oo maxaan ku radaa emotional runtii isugu jira noocyo badan inuu dhaco marka arimahaas iyo kuwa lamida ayaa mar kastaba dhaca loona baahan yahay in aynu wax ka ogaano wabillahi tawfiiq.